بسم الله الحمد لله waxaan insha Allah taala halkan ku bilaabi doonaa silsilad ama taxane aynu kaga warrami doono taxriiraat warsh ama si kale hadii aan u dhigo wajiyada badan ee uu leeyahay warsh iyo habka ama qaabka ama sida la isku raaciyo ama isku raacaan waxaan ku bilaabi doonaa qaybtan koowaad marka ay kulmaan bedel iyo liin mahmuuz ah ee uu bedelku xagga hore maro xagga dambana uu maro liinka mahmuuzka ah sida la isku raacinayo tusaale ahaan aayadan qur'aanka ah ee ay labaduba ku jiraan إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا وآتيناه بدل كبا حق هوري نومري لينكي مهوز كين حقي دنبا يومري حقي رأس آيها يومري marka waxa la isku raacinayaa labadan hab ama labadan siyood ayaa la isku raacinayaa bedelka ayaa waxa la akhrinayaa marka koowaad qasri iyo tawassut ama gaabin iyo dhexdhexaad ama xarakateen ama arbaca xarakaat midkii adu garataba marka bedelkii qasri iyo tawassut ka la akhriyo waxa la akhrinayaa liinkii mahmuuzka ahaa tawassut kaliya ayaa la akhrinayaa marka labaad bedelkii xagga hore maray ayaynu ishbaacinaynaa liinkii xagga dambana tawassut iyo waxaynu akhrinaynaa iyo ishbaac ayaynu akhrinaynaa waxaanu akhrinaynaa sida tan marka إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا ساسة واحد سكون راعي بدل كي حكوا رايا نخليه قصري توسط لينكي مهموز كينا وحا نخليه توسط كليه مركا لبعض حانش باعنيا بدل كي وآتينا لينكي شيء دنبنا توسط وحا نخليه مد إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا